Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Chipotle ama Chipotle waa maqaayad silsilad ah oo lagu cuno cuntada Meksikaanka ah. Waxaana sanadkii 1993 aasaasay ninkani lagu magacaabo Steve Ellis, asigoona qaabka loo kariyo cuntada ka bartay hooyadii, taa oo wiilkeeda gacan qabatay isla markaana si cajiib ah u bartay qaabka loo kariyo cunto heer sare ah. Markii uu Steve gaaray marxaladda dugsiga sare ayuu si dhab ah u galay halgan adag, wuxuuna cunto macaan u diyaarin jiray ardayda qabsanaysa xalfadaha qalinjibinta. Marka uu karinayo cuntada, wuxuu soo aruursan jiray buugaag badan oo ka sheekaynaya qaabka cuntada loo kariyo, wuxuuna buugaagtaasi marka uu akhrinayo ku qaabili jiray qalbi furan, ilaa kolkii dambe ay u suura gashay in uu kariyo cunto macaan badan. Kolkii Steve ka qalinjibiyey jaamacadda Colorado, haddana wuxuu ku biiray macad ku yaalla magaalada New York oo lagu barto qaabka loo kariyo cuntada. Markii uu macadkaasi ka qalinjibiyey isla markaana ka qaatay shahaado dhanka cunto karinta ah, kadib wuxuu u wareegay magaalada San Francisco, asigoo halkaasi ka mid noqday shaqaalaha maqaayadda caanka ah ee Stars. Wuxuu ahaa yoolka Steve in uu noqdo milkiile maqaayad. Shaqaalnimadiisana waxay ahayd waddadii uu u sii mari lahaa hadafkiisa. Intii uu shaqaalaha ahaa, wuxuu ku dadaali jiray inuu kororsado xirfad iyo khibrad dhanka maamulidda maqaayadaha ah. Dhanka kalena wuxuu si dhab ah u fahmay maamulidda maqaayadaha iyo sida loo kasbado macaamiil badan iyo shaqaale xirfad leh. Maalin maalmaha ka mid ah, Steve oo dhex fadhiya maqaayaddii uu cunto kariyaha ka ahaa, ayay indhihiisu qabteen shaqaalaha oo aan cunto siinaynin isla markaana aan danaynaynin macaamiisha. Dhanka kalena wuxuu maqlayay macaamiisha oo ku qaylinaya shaqaalaha maqaayadda, isla markaana dhahaya, miyaysan soconin lacagteenna, miyaad lacag ka dharagteen? Haddaa sidaan ku sii socotaan, ma jiri doonto macaamiil cunto idin soo doonto. Waxaasoo hadalla waxay ku dhacayeen dhagta Steve, asiga dhag jalaq uma siinaynin, laakiin mar kasta laabtiisa way kacsaneed, wuxuuna ka xumaa macaamiisha lacagta sita ee aan sida quruxda badan loogu adeegaynin. Dhanka kale wuxuu arkayey ayadoo macaamiisha laga iibinayo cunto yar isla markaana laga faa'iidayo macaash badan. Waxaa kaloo intaa u sii dheereed in tirada macaamiisha maalinba maalinta ka dambaysa ay hoos u sii socotay. Kadibna Steve wuxuu ku dhaqaaqay sanadkii 1993 in uu aasaaso maqaayadda Chipotle, asigoona ku abuuray maqaayaddani lacag yar. Dhanka kalena wuxuu lacag saami ah ka helay aabihii. Steve ayaa u tafaxaytay siduu ku gaari lahaa yoolkiisa isla markaana uu ku xaqiijin lahaa riyadiisa, wuxuuna xoogga saaray in uu kariyo cunto macaan oo heer sare ah. Dhanka kalena wuxuu ku dadaalay nadaafadda shaqaalaha iyo midda guud ee maqaayadda, wuxuuna weji furan ku qaabilay macaamiisha tirada yar ee imaanaya maqaayadda, asigoona ka iibinaya hilib digaag oo si cajiib ah loo kariyey. Muddo yar oo kooban ayuu Steve ku qabsaday suuqa maqaayadaha ee magaalada San Francisco. Steve ayaa markii uu guulo ka gaaray gudaha magaalada San Francisco bilaabay inuu inta badan wilaayaadka kale ee Maraykanka ka furo faracyo kale. Sidoo kale waxay gaareen faracyada maqaayadiisa dalal ka tirsan qaaradda Yurub.